ujeedada degalkan loo aasaasay ama loo sameeyay waxa weeyaan in xogta qaranka laga heli karo hal meel waxa kale oo loo sameeyay in cid kasta oo danaynaysa inay wax ka ogaato Jamhuuriyadda Soomaaliland ay xogteeda u raaci karto hal meel ama ka baari karto in ajaanibka iyo muwaadiniinta Soomaaliland ay ku helaan information-ka iyo xogta Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo adeegyada ay bixiyaan wasaaradaha dalku ay si fudud ku heli karaan sidoo kale in la casriyeeyo adeegyada dawladdu bixiso isla markaana hal meel oo kaliya laga wada heli karo hadaba degalkan maanta aynu halkan ku daahfuraynaa wuxuu laga soo dheeganayaa oo ay tahay siyaasadii e-government-ka ee la sameeyay 2019 sidoo kale waxa weeyaan horumarka iyo dadaalada badan ee wasaaradda isgaarsiintu ay kula jirto horumarinta technology-ga qaranka sameynta degalkan waxa uu soo socday ilaa 2020 bishii August wuxuu qaatay muddo dheer waxa degalkan laga maalgeliyay miisaaniyadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland degalkan maanta la sameeyay waxa la doonayaa in uu sii waaro oo noqdo meesha kaliya ee xogta Jamhuuriyadda Soomaaliland laga heli karo wasaaradaha si ay u sii wadaan iyo hay'adaha madaxa bannaan ee degalkan ama mareegahooda ku koobsaday oo halkan ku wada jiraan waxa la doonayaa inay sii wadaan oo xogta iyo update gareynteeda ay halka ka sii wadaan maadaama iyaga iminka lagu wareejin doono wasaaraduna in badan soo waday waxa tababar la siiyay dhammaan shaqaalaha wasaaradaha ee maamula website-ada iyadoo loo marayo waxaha ICT-ga ee wasaarad walba iyo hay'ad kasta oo degalkan ku jirta hadaba doorka wasaaraddu ma aha oo kaliya inay samayso portal-kan oo ay soo saarto waxse ay isha ku hayn doontaa oo kormeeri doontaa inuu degalkan shaqeeyo oo uu sii waaro maadaama uu yahay siyaasadii e-government-ka ee la ansixiyay wasaaraddu waxay maandheed u haysataa ciddii ka shaqaysiin weyda degalka kan haddii la yiraahdo inay ka xidhi doonto maxay ahaydey degalada ay iminka isticmaalaan ama website-ada ay iminka isticmaalaan waxaan rajaynaynaa dadaalka dheer ee wasaaraddu gashay miisaaniyadda qaranka laga maalgeliyay in ay ka sii shaqaysiiyaan oo si fiican uu halka uga sii socdo waxaan idinku soo dhaweynayaa mudanayaal iyo marwooyin dhammaantiinba barnaamijka daafurka degalka portal-ka guud ee Soomaaliland yeelan doonto haddii la yiraahdo waxaan rajaynayaa in aynu si fiican website-kan portal-kan uga wada faa'iideysan doono isagoo faa'iido badan qaranka u soo kordhinaya haddii la yiraahdo waad mahadsantihiin kuna soo dhawaada munaasabadda